habiyaha gala lagu tiran jaxjooga umbashada madaaye duluma habiyaha gala lagu tiran jaxjooga umbashada madaaye adna laba kufaante libin waxaad ka gaadhaba laba laabtayso. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري هذا صاحب يال ما أنت وحان دور بنا سياخد راع مقالك عكسو أركتين مقال فلوقة وكساب سن ميل بيدعيئة وقبض الحيسة بيدعيئان وحيكوية لان مقالة تكا وقياسي 40 كيلومتر ودرت مقالة نيروبي بيدعيئان مقالة وحالها أما مقعيز بيدعان لو يقانو حالها 14 فولس وحينكوية لان بنانك مقالة تكا دوشونا أكسي صاحب يال حدي أد جنالكو عصبتها وحنكا عصينا إناد مقالك لا جريسيد جنرال كان على سبسكرايب دهيد mahadsanid saaxiibayaal waxaan soo gudbin doonaa muuqaalo aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan biyo dhacan hadda aan u socono fadlan waxaan ka codsanayaa mar labaad inaad muuqaalka la gareysid janaal kana aad subscribe dahid mahadsanid haatan waxaan galaynaa gaariga aan raaci lahayn biyo dhacan hadda aan u socono waa biyo dhacyo oo 14 biyo dhac gaarayo waa biyo dhacyo oo dadka dalxiisayaasha badan ay imaadaan inkastoo aysan ahayn xiliyada dadka ay imaan jireen haddana waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaal qurux badan ka soo qabano meeshan aan u socono buurtan aan u jeedaan waxay ku agtaalaa meesha aan u socono waa buur aad iyo aad u weyn oo u dhow biyo dhacyada hadda aan ka soo duurubno ama dalxiis ahaanta aan ugu socono idinkana nala dalxiista saaxiib yaal صاحب يال وحان إيماني قوبتا لغي قلاي إريدا قفك ودن كان أدرستي الباب كان وقصو قلا لعق $1 أما بقول شيء إنه كي إيماني لكن قفك أن أدرن ودن كان وقصو قلا لعق $2 أما الله بكون أوكي شيلنا هذا ماشي وان إيماني وحين يكون قبل دونا بيدعى إيقابك ويالو بالحيس وعن ساد وجدان بقى وما أنتوا مالين أحد الحسيال فربنا يا إيمانيان سو كله أرضيدا قار إسكولية كده ومشان أيا لوكينا دالحس أهان سو أركان وحنا ugu bartaan waxyaabaha dabiiciga ah waxaantii biyo dhacan wuxuu ku jiraa biyo dhacyada ugu weyn ee dalkan Kenya waa kan loogu soo dalxiiska badan yahay marka loo eego biyo dhacyo ku yaala gudaha dalkan Kenya waa 14 biyo dhac oo xiriir ah oo kasoo farcmaan ama kasoo burqadaan webiga Athi ee ku yaala dalkan Kenya kadibna waxay ugu dambeyn ku dhamaadaan badweynta Indian Ocean ka ee ku taala magaalada Mombasa dhinacaas ay kaga darsamaan haddana waxaan imaanay qaybtan waxaan idinka tusi doonaa qaybta biyaha ay kasoo burqanayeen wasaqdan ay u jeedaan biyaha wasaqya iyo alaabo ay wada ama waxyaabo qashin ah waxay ka soo qaadeen magaalada Nairobi webiga ka imaada ay ka soo qaadeen
لما لابطي صوتكي دونتا راعينا سيان وأدنو قدي كلا إبيها ودون حاجة waxyaabaha goobtan la sameeyay waxa kamid ah doonta gadaal iga jirto hadda aan soo raacnay si aan dhinacan kale ugu soo talaabno si kale lagu mari karo doonta ayaa la soo raacaya si hadda dadka kale ay sameynayaan dadka way naqanayaan anaga hadda ayaan soo marnay waxa u sii socnaa dhinaca kale oo leh goob dabaal iyo goobo kale si aan idin tusno daabasho wacan saaxiibayaal hay iloowina inaad muuqaal kale gelisin waa muuqaal dib aad iyo aad laga maray meeshaan waa run ahaantii waa meel aad iyo aad u qurux badan kuna fiican jawiga dalxiiska saad arkaysaan biidhacay yar oo kuwii waaweyn aan ahayn ayaa naga dambeeyo hadda dhinacan ayaa ka imaanay hadda waxaan kusii dhawaanaynaa qaybta leh biidhacyada meesha ay ka bilaabanaysay biidhacyadan waa halkan ay ujeedaan biidhacaas ay ujeedaan waa kan ugu weyn ama saddexaad ugu weyn oo noqon kara marka loo baacdiyo kuwa kale ilaa dhinaca jiro goobtan aan taaganahay biyihii ayaa soo gaarayo oo sababtoo ah biyaha si weyn ayay usoo daadanayaan goobtan sidaan hore idinku sheegana meeshan waxay ku taalaa magaalada Thika oo qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta magaalada caasimadda dalka ee Nairobi أنا لا بعرف فانتي من وحدك قادمة لما لابطي صوتكي أنا لا بعرف فانتي من وحدك قادمة لما لابطي صوتكي أنا هنا الريايل لها شباك القعلكن أنا هنا الريايل لها شباك القعلكن ورماني وعيون ليلي عيالي فما منكم من أحد لا قرآن ده والله hadda waxaan noo dhamaaday safarkeena dhinacan waxaan u sii socnaa dhinacan kuwa ka imaanay oo geeskaas kala ah This is a 14-force entertainer with the Jumbo, Double Banner, Malaika, Nakupenda Malaika. Okay. For how long have you been here? I've been here 25 years. 25 years? Yes, I have bought a land. I have educated my 13 people. 13 people, boys and girls. ninkan wuxuu leeyahay
labaatan iyo shan sano ka hor ayaa goobtan joogay ayuu leeyahay. Oh yes. So Konjua, are they the leaders who make the country take out the colony here? Yeah. The colony is working here. The economy is very okay. Yeah. Because I have bought land by 1 acre, and I have educated my 13 people, boys and girls. Okay. Jambo. So what's Bana. making you so fun here? It's because I eat and drink Okay. and I get happy. Okay. Right. Okay. So how beautiful people have you met from other Caribbean countries? What they can do is only to eat and drink and get happy. Okay. Just like me, okay? Last question. Karura Forest and 14 Forest, which is the best forest? Which Karura Forest in Nairobi and 14 Forest. This is the best because the people do come from India. Okay. They come from America. Okay. From Japan. Okay. And from anywhere Asxaabta ninkan in wuxuu the whole leeyahay world. dad badan oo ummado badan oo kala duwan oo sida Hindiya iyo Mareykanka ka imaadeen ayaa goobtan isku imaadeen ayuu leeyahay. Waana nin weyn ah. So how old are you? I'm over 80 and I'm still circumnavigating in this world. Okay. Yeah. So God is good. Okay. God is done me wonders. MashaAllah. Yeah. Waa oday 80 jir anikan. Oh, yeah. I'm a Kikuyu in nationality, born at Muranga. Yeah. Which place do you born? Huh? Which place do you born? Gatanga, Gatunyu, where there is a production of musicians. Okay. Yeah. Okay, waa nin halgama. Asante sana baba. Yeah. Yeah. Let me play Jambo Bana. Yeah. Let's This Waxay is ciyaarna ayuu leeyahay. Play. This is 14 Force Entertainer with the Jambo Bana Malaika Nakupenda Malaika. Jambo Bana habari gani muzuri sana, wageni wakaribishwa 14 Force, hakuna matata. Jambo bibi habari gani muzuri sana, tuimbe Hees yar ayaa idin turay ayuu leeyahay. Ila dhageysta ayuu dhahay. Hakuna matata. Kenya inchi nzuri, hakuna matata. Inchi ya ukulima, hakuna matata. Let me ask you, where did this water come from? This water come from Sabasaba. Okay. They come from Rimuru. Okay. Biyaha Rimuru ayay ka imaadeen ayuu leeyahay. Yeah, they come from Rimuru, and then they are poured what they call sewage. Okay. At Nairobi sewage. Yeah, It's bulacadaha poured Nairobi. into this region. Meeshan ay biyaha kusoo shuban ayuu leeyahay naga dambayso. Yeah. So that's why you see the water is not all that good like a river. Okay. Biyahan haddii aad sida caadiga u fiirsaa waa biyo wasakh ah, xogaana way soo shiirayaan. Taasoo keentay in bulacadaha magaalada Nairobi ay badanaa biyaha kusoo daraan halkan. Yeah, we have divers here. Okay. We have divers in 14 Force. Okay. We have adventurer Okay. in 14 Force, and we have everything good going on our side. Okay. Yeah. Okay. So I wish you every success in whatever you do, with a lot of blessing from above. Okay. Yeah. So how much this one cost? This guitar cost 8,000. Saaxiibayaal waqtiga ayaa noo saamixi waayay inaan tagno buurtaas naga dambayso waqtiga aawadeed cariiri nagu ah ayaan muuqaalka intaan kusoo gagabeynaa muuqaalkan maanta vlogga idinka wadna biyo dhacan intaas ayuu noogu egahay fadlan hadduu muuqaalka ku xiisa geliyo waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like garaysaan channelkana aad subscribe dhahdaan mahadsanid tada kale haddii aan idinkaga soo duubayno muuqaal magaaladan tika aan ku dhaqanahay hadday ahaan lahayd fursadaheeda ganacsi nolosheeda guryaheeda waxbarashadeeda commentiga nooga soo sheega mahadsanidin dhammaantiin saaxiibayaal